berigaa la qoray wixii berigaa la qoray hore maqtuudaad bay ku qorayeen maqtuudaadkaasi muddo laga joogo imika 200 sano ayay bilaabantay in la soo maanguuriyo muddo laga joogo ka ugu horeeya waxa laga joogaa 200 sano oo maqtuudaadkaasi la soo maanguuriyay maqtuudaadka kala duwan ee anagu ilaa 5-6 waan arkay xilliyo kala duwan la soo kala maanguuriyay nin walba inta uu jecel yahay ayuu ka soo qoranaya oo ay nimanba wixii haysta oo ay sida haddaba ay ku nabad galeen ayaa u baahan in la eego waayo waxa jira rag badan oo xitaa Sheekh Isxaaq la socday waxba laga hayn oo qaarna la aasan qaarna aan la aasan sida 8 ilmo Sheekh Isxaaq afarna way la aasantay afarna lama aasan dadka ku harayna markii hore toonba meed la soo gaaray 10kii lix way noqdeen waxay anagu dadkan madoowe ma garanaysaa xayawaanka ka guursan mayno oo waxa niman carabo way diideen inay ka guursadaan ka sheekheeyaan fasax sheekh anagu dadkan kama guursan karo carruurta naga bedelmayso afka bedelmayo waxa iyaga oo dhan baa naga lumayay dawladda iska fasax afar baa ku haray afarta wax aynu ku haynaa ma jirto tifiirtoodii laba way la asantay labana lama asan waaya marka haddaba teenu sida ku nabad gashay aan idinka sheekeynaya tan Sheekh Isxaaq waxa ku nabad gashay waxay ku nabad gashay muddo markii uu joogay Sheekh Isxaaq may ayaa waxa uu yimid nin ganacsada ah ninka ganacsada ayaa wuxuu jeclay wuxuu ka ganacsan jiray beeyada marka wuxuu maqlay sheekh halka jooga Soofiya oo tasawufka ku dheer marka wuxuu dhinaca ka soo barakayso dhinacana beeyada ka soo qaado dabeetana wuxuu yimid sheekhi oo muddo deganaa meesha oo caruurtiisi markaa awow uu yahay kuwii uu dhalay iyo kuwa awowga u ahaa malaa markaa awalun baa guursan inta kale way qabteen caruurtooda caruur sii dhashay wuxuu arkay nimankii oo madmadow caruurtiisii oo af kale ku hadlaysa ayagii oo dhaqankii xoolo dhaqatadii meesha deganeen ee reer miyiga ahayd qaatay dabeetana wuxuu yidhi sheekh anuu uu la yaabayoo wuxuu yidhi bal sheekhi waxa ku dhacay bal caruurtiisi sheekhii saadada ahaa ee carabka ah oo caruurtiisii madmadowday oo af kale ay ku hadlayaan oo ay xoolo dhaqatadaasi geel iyo tabtaa ay Soomaalidu maanta u dhaqmayo markaasuu yidhi sheekh inta goor tahay meeshan inaga oo adigan bedelmay bal istabaqado kuwan markaasuu ku yidhi kan yare Cabdiraxmaan baa u haynaya taariikhda ka lumayso inta kaas wax ka nool kama lumayso markaasuu yidhi muxuu taariikh hayn kuwan u bulamid noqon doonaa isbeer kuwii kala arkaa caruurtoodii markaa waxba ma haynayso inaga mari buuri intay goor tahay aynu iskaga tagna meesha aad buu markaa sheekhi way taabatay arrintii halkaasuu markaa ka bilaabaya inuu horta qoraaladiisii oo dhan u sii dhiibo wixii uu ka hayay wixii gabayay u tiriyo dhanna uu xafidsiiyo soo lamaha inuu yiraahdo qaad waxaas oo wuxuu ogaaday markaa inaan halkan dadka deganin niman taariikh ilaalinaya aan ahayn war kuwii kale ka imid ee Yaman kaga nimanka gaarsiin buushi wixii gabay ahaa kutubtiisii wixii oo dhan dabeetana markii uu ogaaday inuu wada xafidsan yahay wixii oo dhan uu qaaday
ayuu yidhi haddaba tagoo gaadhsii carruurtaydii wuxuu markaa tegey inanka ugu weyn oo darcaan tafiirtiisii oo markaa meeshaba ka ah amiir ayuu ninkii tegey ya dabeetana oo markaa meeshii xukuma dabeetana waa u sheegay wixii oo dhan kutubtii oo dhan u geeyey halkaasi ayuu ka bilaabmay in la ururiyo wixii markaa xafidaaddu siday ku timid baan idinka sheekeynay egeeg maynaan helleen maanta tan sida 4 nin ee kale ee ku harayba aynaanu hayn tafiirtoodii iyo ciday ka soo jeedaan laakiin se inagama fogaan kulle waa dadkan wada deganay markaa laakiin se taariikhdooda qorana ma hayso cidina ma hayso 4 nin labada laasan iyo labadan kalena laasan midna lama hayo حتى مقعدودي بقى شكل كلام مرة كاركو سيدا ده مقعد أنا بشر إسحاق بقى أين مقعد خلوا نقانا أي أنا مقعد خلوا الله يقانا دويت هالكاسي كنا بدك الشيء فهمتوا وحلا سمي ديوان وين ولا ينال الأسجد المنظوم في التاريخ والعلوم أي الله قري وحي تاريخ دي سهيسور دبلا وضع وريستي buugaasaa lagu wada ururiyay wixii oo dhan kitaabkaasi marka la soo qorayo qofka aan taariikhda aqoon ku qaldamaya waayo xilliyo kala duwan ayay ka waramayaan xilliyo aad u kala duwan ayay ka waramayaan marka taariikhdiiba aad u kala duwan oo xilliyo kala duwan baa la qoray way muddo la qoray kitaabkan qofkii taariikh haya qofka yimaada wala diiwaan gelinaya qofkii wala qoray waxa kale oo ku dhex jira qoraalladii uu isagu qoray kutubtu qoray ayaad ka dhex arkaysaa ninka taariikhyahankii uu ka dhex arkayaa in kitaabkiisii uu yahay kaas oo kitaab uu ka qoray taariikhdiisa jira ya taariikh Sheekh Isxaaq al-Ghariib baa la yiraahdaa oo ka qoray waxa jira gabayo badan u tiriyay oo isna qoray isna buugay ayaa lagu qoray marka hadaba maqtuudaadka la soo sawirayo ayuu qof bada intuu jeclaysto inuu wixii waa wax weyn oo sawir ma jirin sawir imaka inaynu balada ka gaadhno mooyaane inaynu imaka in hab hadday ogolaadaan nimanka haysta meesha ونمن عادوا إلى عليا أو أنت سوسنة إلى اللي ومقت قف كي كشكية واحد كشكية المدوجن قف مدوجن وكريا بده أي أفكار كلوكو هذا ليه يا دد ومد بخن دور صنطبني مركانين أي آمنان ومددن تيورتو ما يعني أي باران مو يعني قف سيرو في ستين تكتجي أي أقولان يعني مشت marka nimanka ayaa imaka inay ogolaan doonaan deebka sawir iyo waxa soo baxay oo tan mobilada iyo wax walba lagu sawiri karay technology is isbedelay laakiin sibriyaha hore may jirin marka horta siday ku nabad gasho wadii ka sheekay waxa laga yaabaa dad badan inay leeyahay oo aad istay waxana marka maqtuudaadkii meel badan baa baabay waa 800 sano wax yaalay bad badan baabay barka nimanka taariikhdii hab loo baaraa jirta oo qofka taariikhda say isku sameeyay oo la oranayo sawra markay taariikhdu markay baabaan moogtay laakiin qofka aan aqoon haduu iska dhax galo waa wuxuu qalad buu isdadkii hadhow gelinaya waana dhacday kuwan la soo sawiray waxaad arkaysaa qaladaad fara badan ودشورين يصير وربي وعليه يا وده مركو ماشي مع برنامج بس كبيرنيه ديت كيبا واحد موقضة مثلا بقى أحيانا نكون أركان أنا نقول أركان واحد كمدة هتان تاريخها يدي كير الشيء ديت سكا واحد تاريخ الشيخ إسحاق نتاوخله أوكي و 6
73 هجرة أوكي dabeetana 6kii iyo 7kii un baad muuqdaa wax kale ma muuqdaa ya marka mid bas buu soo doono ka dhigaya mid baa xaqan sabca ka raacinaya mid baa xaqan ya mid badde sida ugu muuqato siduu u doono ayuu buuxinayaa waxaana u badantay meelaha maqal badana u baabaa hore u baabaa sifirka iyo sitaha iyo 9 oo isku qaldamaan oo 9 badana haddii xagga sare ka go'do situu noqonaya ya dabeetana wixii soo qoraya dabeetana taariikhda badarkiisa muddo dheer baan bay ku qaatay inaan taariikh picture sax aan ka helo ya oo aan daba socday date sax inaan imaka date sax waan haya waan isleey wadaysa dates oo maalmaalin u qoran date ya laakiin se dhib badan bay gaadhay ya haddii aan hadda halkaa ka tago iyadoo kooban baan siinaya taariikhda Sheekh Isxaaq wuxuu dhashay 488 waa taariikhda sax ah ee aan بعد هذا تعب يعني أن ده أنا قلت عن سنة هنا تيرو تاهيتاي يا مركن مخطوطات كلام تدونا هجرة مركن هيد أفر بقول يستيد كيبورد الشيء وحيسوها هجرين أفر بقول يستيد يسقاش كيبي كسو هجرين عراق 498 يا تيو أي قوس بديهين oo aabihi awowgi maxamed baa soo haajiray markii uu adkaysan kari waayeen xasuuqii iyo wixii lagu hayay ay ka soo carareen muddo yar kadib markaa Madiina yimaadeen markay yimaadeen markay hijradu ahayd 505 ayuu awowgood dhintay dabeetana saddex waxay ahaayeen bahood ayuu awowgood qabay bah saddexa iyo bah afara iyo bah laba saddex iyo afar isagoo bah saddexa iyo bah afara oo ay todoba iyo bah laba okay dabeetana markuu awowgood dhintay bah bay u kala baxeen bah walba meeshii danteedu tay ayay u dhaqaaqday bahdii labada ahayd Masar bay tagtay bahdii afarta ahaydna Xijaas bay ku hadhay bahdii saddexda ahaydna يمن بيوسو قرطو وكمدي هاي شيخ إسحاق به أوكي تبعتنا مركي هجرة تشام بقولي طبعا أيو شيخ إسحاق به ندت مركوا مسجر هدو كده انت ده شيء مسا والله بيلا تستحلات تبعتنا عرور تودي يسكو بعض عيد أفر تودي أي أبوه وضع نوعي ayaa in yarbu qarbo meel xarareen mid yar oo kale ayaa soo raacay Sheekh Isxaaq labadoodii baa soo raacay dabeetana saba ay degeen wuxuu ahaadee in yar oo dhowr iyo 20 jiro lagu soo barbaariyay diinta ana tafsiirka iyo wixii aad u akhriyay dabeetana magaaladii baa badee wallahi ninkan yaree balaayada ah ee Aalbeed waana niman aad u qadarin jiray nimanka Aalbeedka Aalbeed kan qolana way eriytaa oo waxa eriyada badan nimanka madaxda ah qolana way aad u sharftaan oo dadka shacbiga aad u sharfaan qolada madaxoo dhanna Aalbeedka waxa ka dhaadhacsanaa inay xukunka ka qaadayaan oo axaadiiste nabiga yiri saasa ay akhriyaan dabeetana xukunkan ay haystaan bay ka dhaxarkayaan Aalbeedka waayo dabeetana saasay u calaadinayaan dabeetana sheekhi ninka darcaan la oran jiray oo ka talinay markaa Yaman ayaa maqlay uu yeeray inantiisii busi يا دبعتنا وحنا قضية شيخ إسحاق نين ريب وقرأ إسنين دي تجعل بها عاد يسوي دوي. أوكي.
markuu muddo halkaa joogay ayaa waxay u dhashay laba inan dircaan buu mid u bixiyo awowgii buu ugu magac daray midna shariif buu bixiyo abtigii buu magac daray taa abtisiintaasi uu ugu magac daray awowga iyo abtiga waa mid ilaa innaka had ka dhaxarkaysid ilaa innaka saasa loogu magac daray ismaaciil oo kale abtigii baa loogu magac daray عبد الرحمن وكلنا